بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. walaalyaal ina nebi aadan maxaa ka dhiga adag, maxaa ka kibir badan, maxaa ka dhib badan. xalaashii ayuu xaaraan ka dhigtay, xaaraantiina xalaal ayuu ka dhigtay. wuxuu doonayuu arlada korkeeda ku sameeyey. badda ayuu ilaahay ku caasiyey, samada ayuu ilaahay ku caasiyey iyo diyuuradaha dhexdooda. arlada ayuu fasahaadiyey, dhiig buu daadiyey, dulmi buu galay, wax buu xaday, xaaraan buu ayuu cunihiisa mariyey. intaa kadib ilaahi subxaana wa tacaala cadhadiisii ayaa soo ifbaxday oo waxaynu maqlaa maalin walba intaasoo qof ayuu dhulku la go-ay oo la waayey, intaasoo bad ayaa qaraxday oo oloshay, oo intaasoo ummada ayaa ku rugmatay. ilaahay marka laga cadhaysiiyo, ilaahi subxaana wa tacaala cadhadiisu waxay ka muuqataa arlada. ina nebi aadam ilaahi subxaana wa tacaala wuu abuuray. kadib markuu abuuray ilaahay sidaa kagama tegin, laba dariiq ayuu tusay. dariiquu ku guuleysan lahaa iyo dariiqii uu ku khasaari lahaa ayuu kala tusay. oo wuxuu ku yidhi dariiqaas waa kii toosnaa ee jannada kuga hagayey, ee dembi dhaafka iyo makfirada. kaasina waa kii cadaabta ee iska ilaali. intaa kadib bini aadamku wuxuu raacay dariiqii ilaahay uu ka nahiyey. waad aragtaa dhulgariirka iyo duufaanta maalin walba lasoo sheegay.